wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dambiil ayaa si rasmi ah uga furay shir lagaga hadlayay aqoonta shaybaarka caafimaadka Soomaaliland kan oo socon doona muddo 2 maalmood ah. waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda jaamacadaha Amoud, Adna Aban University, jaamacadda Abasatage iyo KMID, iyo xubno ka socda hay'adda TED iyo WHO, iyo xubnaha ururka ku jira ee jooga gobolada Soomaaliland oo shirkan iyana qayb ka ah. ugu horreyn waxaa si rasmi ah shirkaasi u furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dambiil oo ka warramay siyaasadda xukuumadda ee tayeynta dhinaca shaybaarka, isla markaana ku ammaanay ururka Somla dadaalka ay sameeyeen. soo kabanay dagaaladii sokeeye mushkiladda dawladda wanaagii baan cagta saaray waa arrin wanaagsan soo dhaweynaya association-ka noocan oo kala ah iyo inta sii jirtayba waxaan aaminsanahay inay yihiin weli bahdi caafimaadku. runtii dhowr week ka hor waxaan soo qaadnay mushkiladan jirtay ee curriculum-ka iyo jaamacadaha la furaya iyo waxaan iska socday ee aan xal lahayn. waxaanu doonaynaa haddaan nahay wasaaradda caafimaadka inaanu xad u samayno annagoo la kaashanayna hay-adaha partnerka nalaha iyo associationska bahda caafimaadka inaanu isku nimaadno aanu daraasaad rasmiya samayno aanu ka shirno si aanu jiha wanaagsan u qaadno oo wada tashi dhinac walba ah. gudoomiyaha meelayaasha caafimaadka Soomaaliland Dr. Axmed Xaashi Oday oo munaasabadda isaguna hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay dadaalka ay sameeyeen guddiga meelayaasha caafimaadka qaranka Soomaaliland iyo sida ay u tayeeyeen dadka bartay cilmiga dhinaca shaybaarista caafimaadka oo uu tilmaamay inay imika qorsheeyeen sidii ay u ilaalin lahaayeen aqoonta ay bartay. horta xayiiska inoo dambeeyay nimankan maxay yaqaanaan shahaadadii keena hala baaro hala process dheer baan leeno halkaas xafiiska hoose laga soo bilaabay aniga warqadda u dambeysay ee saxiixa lagu jarayo bay timaadaan hal waxa aroodhan ma galo nimankii aad bay u xanaaqeen halkii way ugu yar caayeen dabeetana aniga dib u soo qabtay waxaan ku waan idin fulinayaa intaan mid kamid ah soo qaaday shahaadadiisii ayaan ku dhakan maxaan ku xaysan muxuu yaqaanaa waan dhakhtarka ana aftarka ma aqaan iyaguna ma yaqaanaa bal sheegan ku waxaan idin ku qoraanaa baxa xeerka jabiriyay dibna u garan waay iyadoo taliyo malhid oo xididna malhid oo saaxiibtinimo iyo la balba laga baxay qaar baan la hadda maanta dib salaamin ma wuxuu watayna ma sheegi karo qodobkaas oo qodob in haya haddii aad mid gasho haddana kala qabatay tiraamish ku wanaagsanina Suudaan baa aqalba soo baxay. gudoomiyaha shaybaaristayaasha Soomaaliland ee Somla Khadad Ibrahim oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay qiimaha uu leeyahay shirkan dhinaca aqoonta shaybaarka caafimaadka oo socon doona muddada 2 maalmood iyo dadaalada ay geliyeen Somlahan. wuxuu aad ugu mahadnaqay dadka ka yimid gobolada ee waqtigooda u soo horay sidii ay uga qayb gali lahaayeen shirka. waxaan maray wixii Somla laga oran lahaa wax leeyahay dhibo qoraal aan ka ahayn markaa inaan u mahadnaqo marti sharaftaas waqtigooda aad ka u qaaliga inoo soo horay. waxaan kaloo halkan ku dar lahaa codsi ah inta halkan fadhida waa intii caafimaadka ku saysay hadday noqoto wasaaradda caafimaadka oo ka mas'uul caafimaadkii dalka jaamacadihii oo jooga oo meelihii laga soo saarayay health facilities kii oo ah meelihii waxa weeyaan caafimaadka bixinayay iyo NHPC oo ah controlkii ama booliskii inoo controli lahaa waxa weeyaan xubnaha caafimaadka ku shaqeeya in gaabiska iyo challengeska hadda la inoo sheegay waxyaalo fara badan oo laga qabtay way jirtaa laakiin wixii la qabtay ma aan soo horeysiinino wixii la qabtay waa la qabtay oo reedi. agaasimaha fulinta ee Somla Muxidiin Axmed Jibriil oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inuu shirkani qiimo u leeyahay dhinaca shaybaaristayaasha dadka bartay isla markaana ay dadaal geliyeen Somlahan inay dadka ku wacyigeliyaan shaybaaris tayo leh oo kor loogu qaado dhinaca bulshada. ururada professional associationska dhamaantii waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. bacda salaan waa shirkii ugu horeeyay noociisa oo kala ah waa shir cilmiyeed ee lagu falanqeyn doono arrimaha shaybaarka waan ugu magac darnay annual medical laboratory knowledge and scientific conference. وانا شركي ugu horeeyay noociisa aanu qabano وانا شركي ugu horeeyay noociisa ee professional association soo qabtaan maanta Janice aan u helnay inaan noqono cid ugu horeysa hawsha qabata.